tan iyo dhammaadkii sanadkii 2020 Itoobiya waxaa ka olacay dagaalo sokeeya oo marba heer taagnaa. Hogaamiyaha ku guuleystay biladda nabadda abaalmarinta adduunka marka la noqday abaanduulo dagaal ayaa xilligan wajahaya marxaladiisii ugu adkeyd waayihiisa hogaamiyeed. Abiy Ahmed Cali waxa uu lumiyay saaxiibada caalamiga ah, kuwa gobolka iyo gudaha dalkiisa, wuxuuna markan wajahayaa aragtiyo isdiidan iyo tal loo badinaya inuu qaaday tubta kala dhaqaaqa iyo kala haadka, taas oo halis badan ku ah gobolka Geeska Afrika. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa hogaaminta Abiy Ahmed Cali iyo 5 sano ee uu talada hayay, xaaladda uu maraya dalkaasi, sida uu u lumiyay xulufooyinka gobolka, saaxiibada caalamiga ah iyo siyaasiyiintii horseedka u ahaa kursi uu ku fadhiyay ee looga taliyay Itoobiya. Waa kuma Abiy Ahmed? Abiy Ahmed waa wiil ku dhashay tuulada lagu magacaabo Bashaasha ee koonfur galbeed dalka Itoobiya. Sanadku markuu ahaa 1976, waxa uu ka soo jeedaa laba waalid oo kala haysta diimaha Islaamka iyo Kiristaanka. Abiy oo ah Abiyiga maanta waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay magaalada Agara ka hor inta uusan ku biidan ciidamada qalabka sida. Jeer dambe waxa uu guursaday Sayanish oo ah haweeneyd ka soo jeeda magaalada Gondar ee gobolka Axmaarada. Waa haweeney haysata diinta Kiristaanka, mararka qaarkoodna ka haysta kaniisadaha. Labadoodu waxay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka qalabka sida. Walow uu dhalay aabbo Muslim ah, yaraana uu ku bartay qaybo ka mid ah Quraanka, haddana ma cadda caqiide ahaan haatan waxa uu aaminsan yahay. Waayihiisii askarinimada sanadkii 1991, Abiy Ahmed waxa uu ka mid noqday caruur la askareeyay oo lagu dagaalgalay, wuxuuna ku biiray dhaqdhaqaaqyadii hubaysnaa lagaga soo horjeeday Mengistu Haile Mariam iyo nidaamkii dargiga ee shuuciga ahaa. 2 sano kadib waxa uu noqday askari si rasmi ah uga tirsan ciidanka Itoobiya. Isla sanadkaas ayuu ka mid noqday askar nabad ilaalin lagu qaaday dalka Rwanda. Mar kale waxa uu ka qayb qaatay dagaaladii khasaaraha badnaa ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Eritrea, kaasoo dhacay intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2000. Waa korneyl waxbarasho ahaan gaaray ama darajo ahaan gaaray heerka waxbarashada darajada doctoraadka, waana sirdoon soo maamulay hay'adda sirdoonka ee dalkaas. Imaanshihiisii xukunka laga bilaabo Oktoobar 2015, Abiy Ahmed waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka uu ka soo jeeday Oromada, ilaa uu ugu dambeyn noqday madaxweynaha deegaankaas. Kadib kacdoon dadweyne oo xiriirsanaa muddo 3 sano ah oo lagu diidanaa xukunkii Tigrayga, waxa uu hogaamiyahan isku soo taagay in uu qabto jagada ugu sarreysa ee dalkaas, oo uu bedel u noqdo Haile Mariam oo iska casilay xilkaas. Waxa uu qabtay hogaamiyaha xisbiga OPDF oo ay ku midaysan yihiin 4 qowmiyadood ee ay ka go'do talada dalkaas, taa oo la micno ah in uu si toos u noqday ra'iisul wasaare dooran.